السلام عليكم ورحمة الله. maalmahan waa lii waayay masajid badan ayaa helay halkee ka baxdaniyo intee aade iska yar busy ayaa ahaa client-na waa iska mashquulsanaa dadka coachka ayaa waxaas maalmahan busy Skype Viber saa ugu jirnaa meesha ku mashquulnay anyway so ay kana meel ma aadin marka maanta waxaa rabay inaan ka hadlo maxaa la dhahaa jirkaaga baro wax la dhaho maxaa ka wadaa jirkaaga baro macne school tag miya jirkaaga meel walba kamid soo baray ma ka wadaa maya sama ka wadi waxaa ka wadaa jirkaaga sida uu shaqeeyo baro okay dadka bilaadanka horta isku mid ma ahan qof walba jirkiisa uu gooni u shaqeeyaa tusaale ahaan aniga ka soo qaado ani jirkayga carbohydrate badan hadaa cuno kiilooyin ayaa ifuulo waxay ahaataba carbohydrate 200 ilaa 300 gram ka badan hadaa cuno jirkayga waxa uu kordho laakiin dad badan waxa aqaana jirkooda 300 iska dhaaf 500 cuni karo oo jirkooda wax kordhin sidooda hadan tusaale kale ku siiyo dad waxaa jiro oo cardio u baahneen inay ordaan u baahneen oo ayagoo soconaya hilib ka dhacaya haddii kale oo socod xitaa sameynaynin oo hilib ka dhacaya marka jirkaaga baro waxaa ka wadaa siduu jirkaaga u shaqeeyo baro sida macnihii qofka kale ugu duwan tahay baro tusaale ahaan hadda ku siiyolo cida gaala meeshaas ka tumanaysa cooking out waxa la sameynaa so tusaale ahaan ku siiyo gaariga Toyota iyo gaariga Ferrari ama Lamborghini isku mid miya waa maya isku shidaal ma aha waxa laga yaabaa ooli inay isku mid ahayn waxa la isku speed inay ahayn wax walba kamid ana different u yahay oo kala duwan yahay maxaa keenaya sababtoo ah laba qof ay soo kala saartay laba company ay soo kala saartay si qorshooyin gooni loo kala soo saaray adina sidoo kale ilaahay si gooni inuu kala abuuro qof bas iyo loo abuuray qof macnaheedu jirkeena isku wada mid ma nihin soo jirkaaga baro hadda dadka coachku ah badankood dhibka haasta waxa weeyaan jirkooda wax ku shaqeynaya ma yaqaanaan diet plan siinaysa wixii ka taga wax kale uu sameynaya markaas jirkiisa week gudahooda confuse ku sameynaya jirka macnaheedu jirkiya maanta low carb cunte low bir isku xigta low carb cunte maalin saddexaad waxa cunta chocolate balaayo badan kiilooyin sidii ku soo laabteen qofku uu soo gareena oo maalmaha dhandhaayada ku jira kiilooyinku ugu soo laabteen adaa isku soo celiye sababtoo jirka wuxuu ku shaqeynaya ayaa ahayn wax kala siisa haddii macnaheedu wax badan macmacaanka badan aan cunaysid kiilo ku saarayso isku day inaad bedeshid oo macnaheedu jirka waxa siisa waxyaalaha uu ku shaqeynaya baro hadda hal bil camal diet ku jirto hal bil wax weyn qofka jirkiisa uu ku barto soo jirkiisa u shaqeeyo ku barto hal bil wax weyn ani marka diet-ki waxa ayna serious u gal bartay kooda horta waxa isku dayay maxaa lahaa jirkeyna barto horta maxaa jirkii ku shaqeynaa muxuu diiday maxaa macna kiilooyinka isaaray marka aa sameeyo so marka week diet galay oo jirkeyga low carbohydrate ku shaqeynaa arkay week ku xigta ayaa waxa isku dayay inaan carbohydrate kordhiyo marka carbohydrate marka kordhiyay horta week marka kordhiyo jirkeyga miisaanka sidii ku soo laabtay okay waxa isir ku sii wad marka ogaa hadduu macnii asigu yahay wax ku oo kilibkaaga dhicin waa ku sii waday kiilooyinku ugu soo laabteen so waxa bartay inuu jirkeyga carb badan uu diiday cardio u baahanaya haddii xataa aniga jirkeyga carbohydrate ka yareeyo hadda ramadaankan oo kale carbohydrate zaid uu yaryahay saas ay tahay dadka kale coachku ay soo hilibku u dhacay igama dhacanin dadka badankiisa waa cardio na sameeyo sabab waa kan had sida u jeedaan oo lugeynaya cardio nooc badan oo leeyahay ogteen socod xataa qayb cardio kamid ah adoo gaajoon marka lugeysid ilaa 30 daqiiqo enough cardio so macnaheedu jirkeyga wuxuu ku shaqeeyaa in carbohydrate yar cuno cardio aan sameeyo tusaale ahaan yar saaxiibnahay isla almiitan marmar albaniana wuxuu cunaa cunto nooc walba jim marka ka baxan McDonald's ku aada ani McDonald's iska daay kii guriga ay dhibaa inaan cuno jirkiisa daaragtina waa yaabeysa kiilo hilibkiinta saaran zaid u yiri 10% 8% ma dhaaf jirkiisa marka jirkiisa sidaas wuxuu rabo cuni karaa marquu ris karaa marka generic waxa la dhahnaa way jirtaa generic waxa weeyaan wax family aw leenahay
معني فاميلكaaga hadday micnihii iskiin yihiin badankood adina iskiin ayaa noqonaysaa haddii aabbahay hooyada awoowayaashaas ay yihiin generic hadda dadka fiiro dadka kale afrikaanta kale oo soomaalida ahayn anaga soomaali afrikaan weeyaan laakiin waxaa ka wadaa dadka kale isku jir ma nihin soomaali jirkooda si gooni uu yahay anaga Etoobiyaanka Eritreaanka isku jiraan laakiin anaga iyo West Africaanka diriskaanka dhigo isku mid ma nihin dadkaas natural ilaahay jirkooda saas u yahay way naga jir dhisan yihiin wax iskiina wuu yiri dadkaas maxaa yeelay generic waa familkooda asalkooda daa fiirisaa weeyaan laakiin anaga asalkaana fiiri dadkeena hore fiiri kulli saasi ahaayeen soo generican wuu soo galaa generic waxaa kaloo soo gala maxaa lahaa jirkeena siduu hilibka u dhiso hilibka u rido ama hilibna maxaa lahaa u dhiso fiican marka sidaas ayaan sheegi rabay marka baris jirkaaga siduu u shaqeeyo maxaa lahaa ogaata jirkaaga wax diidaya waxa yeelaya waxaa ku fududaanaysa hal diet ina stick ku noqotid macni aad la qabsatid oo macni kaas kaliya aad samayn karaysid adoo marba bedelin haddii macni haddii ku adag tahay inaad bedeshid maxaa lahaa dietka hal kaas diet kaliya qabsanaysaa xaafadaha Soomaalida dhaxmaraya qasab gacmaha maanta la taagaya marka waxaan maleynayaa wax badan faantay maxaa kaloo lahaa maxaan kaloo sheegay intaas waa filayaa soo jirkaaga baro siduu u shaqeeyo baro jirkaaga insha Allah wili waa socdaa video kale ayaa record gareynaya topical ah insha Allah tobankan dambe waxaa waa isla soconaynaa maalin walba ama maalin dhaafina video sameynayna isku day doonaa channelka hadda ku cusub tahay oo macni coachna u baahan tahay ama qof coach gareeya maxaa sugaysaa dee la xariir ciwaanada idin la koraya ku soo qoraya insha Allah like peace